naasaha durtay ma balihiiba maxaan durtaa wixii meesha la soo dhigay waa weynanka badnaa malihi anu halkan waxaan ku qabanayaa shir jaraa'id wadeexad la yaab leh oo bannaanka timid xiriirka jacayl ee ka dhexeeyay Ilka Casaqays iyo Nimco Joker oo u muuqda mid burbur ku dhow kadib markii ay soo baxeen muuqaallo iyo sawirro hor leh. Bannaanka Ilka Case oo la sheegay inuu xiriir muddo dheer la lahaa naag Afrikaan ah isla markaana uu ka raaci rabo Nimco Joker oo hadda soo baraarugtay isla markaana afka furatay. Maxaa ka jira in muuqaallo anshax xumo ah laga duubay Nimco Joker isla markaana Ilka Case loo diray? Warbixinta ayaan ku eegi doonaa iyo fadeexadan bannaanka u soo baxday Nimco Joker oo ka hadashay muuqaaladaas iyo sidoo kale inay duratay qaybo ka mid ah jirkeeda. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarato, share-na tira lana wadaagto saaxiibada. Nimco Joker iyo fanaanka Ilka Casaqays oo fadeexad weyn soo wajahday kadib markii ay soo baxeen sawirro fanaanka Ilka Case oo la sheegay inuu muddo dheer xiriir kala dhexeeya naag Kenyaan ah oo u dhalatay waddanka Kenya isla markaana sawirradaasi ay hadda bannaanka yimaadeen. Nimco Joker ayaa afka furatay, waxay ka hadashay arrimahaas iyo arrimo kale iyo sida qayb ka mid ah jirkeeda ay u duratay oo ay dadku isla dhex marayaan, iyo sidoo kale waxay ka hadashay in ayada iyo fanaanka Ilka Case ay xiriirkooda burburi rabo iyo in laga duubay muuqaallo anshax xumo ah. Nala dhagaysta warka ka soo baxay Nimco Joker iyo sida ay u aragto. midda labaad oo aniga la igu daba socdo oo la iiga daba hari laayahayo naaguhu la qaracmeen kuwa dad iigu sokeeya iyo kuwa iga shisheeyaba ay dumar oo dhan siilay oo dhan ay la qaracanta ma taqaanaa quruxda aniga ilaahay igu manaystay oo dabiiciga ah qaar waxaan arkay dhahay way isqalqashay dabay samaysatay naasay samaysatay meelaha la fadhiya quruxdaydii dabiicigayd oo ilaahay ii abuura wallaahi وبالله أطلّه الناقة أنيق اللوقة يقصو قرأ سناب جاتك سور واللي قصو دحق الباب اللي قصو قرعين ناقة با أنيق سو لوقة انت يسو قرأ محي دهان جوكر با إلكها محرطي بشي مها مدورتي لحظة يقارك الدم مسكا قشي جوكري والله وبالله أطلّه إنا نبين شيقين هذا وح اللي يقوها يستوح كلامها هيا وأبو رسله إنا لله وإنا إليه راجعون وح اللي يقوها يستدد كاسوا وين وعنيق إندالي كرا أو قاركور أفرتن كورو دافين قاركور كنتن كورو دافين وحك حجنيان ويدب السعودان وأبو رس إلهي كشكاية والله وبالله ما أنت يقول نحدين بدنا يدوحي أحد ما أنت ناق أنت أنا إسكا قصلاي always ولقي فرحت دجال نولشي دي أنت أنا ولا ضدك الدجال كتجعلني حتى قف الدان كرباشة يعني وحن جعله إنه قصر كوكو كرباشة كيقرأ على هذا يعني فملكي يو أدو وحي وإسكو قصني مركا طبيعات بقف سو ملها قف هدا إسقبنا حتى والله بالله ضدك تشعل ما هي أنا جو لفجار كأنه قف وعيان waxa ii dhaanta qofka inaan kelmad yar oo naynaas u bixiyo cabaar ku qosqoslo ka tago familkiisa ma daba galo noloshiisa ma daba galo shaqadiisa ma daba galo meeshuu degan yahayna ma daba galo because ilaahayba aniga ima daba galin because ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ummadayda ii nabadgeliya taasaan anugu aaminsanahay in la kala nabad galo waa isqashay dabaad samaysatay naasaha durtay ما بليه محان درتا وحي ماشي اللي سودي جا وين كبدنا مليه أنو muuqata inay ilmada ceshan weysay isla markaana si aad u ilmeysay kadib markii la sheegay in ay muuqaal anshax xumo ah iyadoo la galmoonaysa nin cadaan ah iyadoo arrintaasi uu Ilka Case muddo dhow ku baraarugay kadib markii dad Soomaaliyeed ay u soo direen muuqaaladaasi. Haddaba haddii arrintani ay sii socoto ayaa waxaa laga yaabaa in uu soo laabto xiriirkii ka dhexeeya Faysal Xawaase iyo Nimco Joker walow arrintaasi uu Faysal Xawaase ilaa iyo hadda uusan ka hadlin. Nimco Joker iyo fanaanka Ilka Casaqays ayaa isguursaday sanad kadib markii fanaanka Ilka Case ay u soo bandhigtay jacayl xad dhaafa fanaanada ama Nimco Joker. Haddaba Ilka Case sidoo u arkaa arrintaas? Waxaa sidoo kale goob fagaara ah ama shir jaraa'id uu qabtay fanaankii hore ama ninkii hore ee Nimco Joker Faysal Xawaase
uu sheegay sababta ay u kala tageen iyo arrimo kale oo la yaab ku noqday fanaanka Ilka Case. Haddaba waxaa la yaab ku noqotay Ilka Case inuusan Faysal Cawaase u sheegin mar hore sidii waxaa macquul ah haddii uu sii socdo isku dhacaan iyo arrimahan la yaab kale ee hadda soo shaacbahay in fanaanka Ilka Case Qays uu saddexdeeda madaxa ka saaro waa Nimco Joker ayaa hadda waxa ay u muuqataa mid taagan cidsi ceyrsala oo xaaladdu ay ku soo adkaan rabto. Allaaweyn ninkii aaminaa awood leh ayaa la dhihi jiray. Haddaba Faysal Cawaase muxuu ka shifay? Maxayse tahay arrimaha hadda lasoo bandhigay? Fanaanka kale ee Ilka Case Qays ayaa laftirkiisu wuxuu wajahayaa fadeexooyin kale. Markii lasoo bandhigay muuqaalada Nimco ayaa waxaa soo shaacbaxay haddana sawirro hor leh. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena Galaangal Media waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto sidii noogu soo xirman dad wanaagsan. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. malihiiba maxaan durtaa wixii meesha la soo dhigay waa weynanka badnaa malihi anu videogaas wuxuu yahay video aad iyo aad u wadwadaan oo dhahaysaan waxyaabo badan aan idinka maqlaa mar waxaad leedihiin Nicmo Joker waa la kufsaday nin